ugaas xaaji maxamed cabdi macow oo loo yaqaano bahalow isla markaana ugaaska sida rasmiga loo caleema saaray reer abkay arfaxow kana tirsan beesha Sharmaake ayaa si sharaf leh loogu soo bandhigay bulshada ballaaran ee Murule. Munaasabadan qiimaha leh waxaa ka soo qayb galay uqaal waxgarad iyo hogaamiyaal bulsho kuwaas oo si diiran u soo dhaweeyay ugaaska isla markaana si rasmi ah u aqoonsaday inuu yahay ugaaska xaq ah ee reer arfaxow. uqaasha iyo ismadu waxay ugaaska u jeediyeen duco iyo bogaadin iyagoo muujiyay taageeradooda buuxda kuna soo dhaweeyay hogaamintiisa kana marakacay kalsoonida ay ku qabaan doorkiisa ilaaliyaha midnimada nabadda iyo dhaqanka suuban. soo bandhigistan waxay ahayd talaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka iyo wadajirka beesha Murule isla markaana dib loogu adkeynayo balanqaadka wadajirka ee ku aadan iskaashi, is-ixtiraam, nabad ku wada noolaansho iyo dhowrista hidaha iyo dhaqanka iyadoo ay hogaaminayaan ugaasyada dhaqanka. marka halka ugu yeeraykiisu waxa waaye naxariista Allah ku waraabiyo waxa uu siintii wadaadka ku jiray ninka liyaha Rashid Macow Allah u naxariisto nin walba waytaan uu ogyahay sida loo dilay meesha ku dhintay waa la ogyahay jannada Allah ku waraabiyo ilaahay idinkiis nin muumin oo aad u wanaagsan oo Allah ilaaha adduunka ku fiican asahay aakhirada ku fiican insha Allah intaas ka bacdi ninkii ila ahay bedelkiisii ayaa nin kale la keenay oo dhahay markaan bedelkiisa ninkaan noo buuxinaa cid reebo hadaan nahni arfaxow ninkaan noo buuxinaa ninka bedelkiisii oo la imaadnay oo ku soo bedelnay reerkii dib ka dhashay intiyaar soo saaray warkaas wiilkii waa soo bixiyeen way soo duubeen way loo keeneen Sharmaake Muuse u keeneen waxay dhaheen waa kan wiilkii aan soo duubnay duqi adeerkiisa ay bedelkiisa waaye annagu waan ku soo raacnay famil ahaan eedan markaan nala qaaday waytaan dingal loo duubay waa ka wiilka laga warqabo marka ninkii naas ugaaska bedelkiisa uu ugaasyahay ha laga warqabo kale iyo arinba alla ilaahay iyo dhaqan iyo alla ilaahay dhihba ha loogu warqabo ha loo sheego tolkaan alday bas waa maasantiin annaga waa ka maqalnay waa laga doonay tolkaan oo sheegay ha loo yiraahdo awgeetaas waa marka ninkaas la soo saaray ninka la soo saarayna waxa waaye Maxamed Macalin Cabdi Macow marka warka waa intaas ayaa la qaadin shirku wuxuu ku yeeray ila la qaadin dadka u yeeray anaga hore u soo qaadnay warka anaga inta waa assalaamu alaykum warka waxa loo badan amalay jiifka sheegay mar hore arrinta isku yeeray waxa waa on daal ku diido sida jiifku u sheegay ninkan walaalkeen oo Maxamed Cabdi Macow inaan ma daal ku diido turkiisa qaraabadiisa oo soo calaam saareen aniga muxtaar abkay Maxamed dadkooda Sharmaake noo keeneen aniga sidoo kale calaam saarnaan qaadni inay nala qaadana ay ku yeeray asal intaas waaye qofka raacay meesha loogu imaado wiilkaas baahay u macdeen shirka baqaanada ila meel qaadiyo baarna hada qoomada jirida wiilka oo tisay inta sida baarna meesha loogu imaado qofka raacay ay la qaadaan ninka la soo baxay ku barakaysa Allah ka dhigay kiisato absuluule oo barakaysan oo uga sii jiray Allah ma dhigo sida adeegisa u dhaqmay oo ma dhaqmay meel xala kii wuxuu hogaamiyo oo sukeeno oo maanta ay noo ku joogan Allah ka dhigo meel ajaran nabad Allah naga dhigo oo u duceeyay Allah barakeeyo kii soo hogaamiyo Allah ka dhigo kii lagu leeyahay Allah ka dhigo kii ku horeeyay Allah ka dhigo ku farxad oo yimid nabad Allah ka dhigo intaas ay waa inta kala Soomaali waxa ay leeyahay ninka keenteen aniga iyo aan weytaanay waa la qaaday ugaasida Allah ka dhigo marka insha Allah waxay isku soo raacay anaga halka ma qabna marka waxaan leenahay waa soo dhawaad kulli magaalada ninka lagu badalay magaalada ninkaas aqoon u leeyahay marka insha Allah waliga qaybta ka dadaan marka wixii la soo qaadanay warka waa la soo qaadanay inaan qaabno ku waxahay marka ninkii qofkaas keenay oo galaas guud hoos laga soo bilaabay cidaan adana adiga waxay soo qaaday adana weytaan oo keenay أنا زمان بقول لك هذا يجوا تملك، فلسفة ما هو قاعد